بسم الله الرحمن الرحيم وحما هذا ودن اسكله الله سبحانه وتعالى أمان إنا بتقلينا كركيسي ها أهات حبيبكنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا ريال كسود وهذا ومركله إيه برنامج كني فرنسيدة يعني قلت لك لي إنه فرنت عن سلان هاي وحويها قاعدين سا ما يتوسين سا أما وحق الله عضي أو قلد ما بيصح سا إنه هل كان أمرنا إني حد بعد عن سلان هاي باهدا سين وقبنا إنه قارسينه وحمان تفرنت إننا يكسعتا معلمينته rag iyo dumar labadaba oo dabcan fariinsidayaal khadeen shaacirka carbeed waa kii lahaa markuu ka waramayay macalinka iyo qiimaha uu leeyahay kaada almuallimu an yakuna rasuula macalimku wuxuu ku dhawaaday inuu rasuul noqdo min naahiyati cidamati xaqi weynida ay weyn tahay ama uu weyn yahay xaqiisu dhowr dardaaran oo aan badnayn baynu jecelnahay halkan inaynu u marino macallimiinta maadaama ay gacanta ku hayaan ubadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu arsaaqay oo wax ilaahay inagu galadaysto wixii ugu qiimaha badnaa markii laga yimaado islaamnimada waa wixii aynu ugu jeclayn waa beerkeennii waa qalbigeennii waa kuwaynu iyaga dartood u gaajoonanay milicdii cadcid aynu maranay u haraadanay u daalanay bal si ay u farxaan u raaxaystaan waxna u bartaan waa mas'uuliyad lagu aaminay macallin ubadku hantidii ugu qaalisanayd ee qof bani aadam oo hantiyo ama gacantiisa soo gasha oo ubadka talaabada ugu horeysa ama dardaaranka ugu horeeya wuxuu yahay inaan u soo jeediyo macallimiinta rag iyo dumarba maadaama mas'uuliyadda weyn ay hayaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga baqaan oo ay dareemaan in mas'uuliyad iyo amaano culus ay hayaan intii karaankaaga awoodaada aad qaadi karto sameyn karto ubadkaasi u samee sida ugu wanaagsan haday noqoto tacliintooda inaad wax barto u barto sida ugu fiican ee awoodaada haday noqoto tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda inaad ku dadaasho in akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda ay noqoto ta ugu wanaagsan oo aad kala dagaalanto oo aad ka reebto oo aad diido akhlaaqda xun iyo dhaqanada khariban ee ubadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantaadu soo galiyay in ay ku barbaaraan inaad ka reebto ama aad diido dardaarankaasi waa ka koobaad وانا دي دردارنكي الله سبحانه وتعالى ودردارمي امده انغه هريي ينغبا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله مسؤوليته كسارن ان اد غدتو سي الله كعبس ku dheehan si mas'uuliyad ku dheehan si amaano ku dheehan inaad mas'uuliyada u gudato sida ugu fiican dardaarankayga labaad ee aan u jeedinayo walaalahayga macallimiinta rag iyo dumarba waxa uu yahay macallimiinay waxaad ogaataan inaad tihiin marka laga yimaado waalidka dadka labaad ee ubadkaas ay ku dayanayaan hadii ay hagaagaan waa idinkee waa macallimiinta hadii aynu hagaagno waa macallimiinta waa inagee ubadkaas inuu hagaagayaan hadii aynu xumaano ama aynu qaloocanno ubadkaasina way qaloocanayaan maxaa yeelay way nagu dayanayaan laga soo bilaabo ilmuhu markuu KG yahay standardka ugu hooseeya ilaa iyo ugu sareeya macallinku saameyn aad iyo aad weyn ayaa uu ku leeyahay ilmaha haday noqoto waqtiga xanaanada mar hawdada ama KG-ga hoose dhexe madrasada malcaamada dugsiga sare macadka jaamacada iyo hal majar saameyn weyn buu ku leeyahay marka dardaarankayga labaadna wuxuu yahay macallin toosnow wanaagsanow iyo dasoo gudagalasa alla ka cabsiga qaybta hore waa ku dardaaranay mas'uuliyadda inaad Ilaahay ka cabsato imka waxa leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabso oo ogow inaad ku qumto waajibaadka Ilaahay ku saaray kana dheeraato wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka reebay xasuusnowna mar walba macallin inaad tahay qof qudwa role model lagu dayanayo toosnaantaadu waa toosnaanta ardaygaaga qaloocaaguna waa qalooca ardaygaaga mar hadii mas'uuliyadaasi ay sida tahay waxa laga maarmaana inaad ku dadaasho inaad toosnaato wanaagsanaato ilaa lagu dayanayaa
ubad baa kugu dayanaya macallinkii sidaas u sameeyay macallimadii sidaas ay sameysay waxaad ku hadlaso talaabadaad qaadaso ficilkaad sameynayso waxa ka soo filayaaba waa inay noqdaan ficil iyo hadal iyo talaabo lagu yaqaano qof lagu daydo oo dad ay ku dayanayaan dardaarankayga saddexaad macallinka mas'uuliyadaha waaweyn ee laga rabo waxa kamid ah marka fasalka lagu dhex jiro ama wax dhigayo inuu ku dadaalo cadaalad oo ardaydiisa soo kala dhaweysan ka xariifka aanu ka soo dhaweysan ka aan xariifka ahayn ka mushaaqibka ama hadalka badan ama dhibta badan leh inaanu ka soo dhaweysan ka degan ama aamusan dabcan way kala duwan yihiin ubadkii marka ay galaaska ku yimaadaan waxay ku kala duwan yihiin sida guriyaha ay ka yimaadeen ay kala duwan yihiin laakiin macallinka maxaa laga rabaa ka wanaagsan iyo ka aan wanaagsanayn ka aqoonta ku fiican iyo ka aan ku fiicnayn ka qalqaaliga iyo ka degan intuba inaad u noqoto macallin inaad agtaada ay ku sinaadaan oo waxay xaq kugu leeyihiin ay ka wada helaan dardaarano fara badan baa jira oo ku saabsan marka macallinku fasalka uu joogo waxyaabaha laga rabo inay ka mid tahay inuu ardayda la socdo markuu casharka dhigayo inaanu ku go'aan qaadan kuwa xarfaanta markuu hadlayo inaanu ku go'aan qaadan kuwa cod dhagoogu ay fiican yihiin laakiin codkiisa uu kor u qaado markuu casharka dhigayo inaanu ku go'aan qaadan kuwa indhahoogu ay saxda yihiin ee uu ka warhayo kuwa aragoogu daciif ka yahay waxyaabo fara badan baa looga baahan yahay taasina mas'uuliyadii la tacalluqday ama xiriirka la lahayd xagga aqoonta iyo waxbarashada dardaaranka afraad ee aan macallimiintan jecelahay aan u soo jeedinay wuxuu yahay macallin waxa laga yaabaa mihnada inaad ku jirtay in fara badan ka soo qaad 5 sanadood baad ku jirtay 10 sanadood baad ku jirtay 15 sanadood 20 sanadood 30 sanadood bal waxaad samaysaa isbarbardhig maalintii aad macallinimada bilowday aqoontaadu halkii ay taagnayd haddii aanad waxba ku biirin ardaygii aad alifka u qabatay intuu ku dhaafay inuu adiga dib wax kuugu dhigay amaba uu ka sareeyay amaba fasalka dhexdiisii uu kaaga aqoon batay wixii aad dhigaysay nooc ma ama sawir nooc may ku yeelanaysaa waxaan taa uga dalnayahay ama aan u jeedaa macallin aqoontaada ku bixi aqoontaada kordhi waxaad ardayga u akhriyayso u dhigaso u sheegayso soo diyaari ardaygaaga ka horree aqoontaada guud kobci ku dadaal mar walba inaad aqoonta dhiiri geliso ha ka muuqato ma kaliya jaamacad iyo dugsi in qofku musalsalka 12 sanadood uu ku jiro aqoontu way ka balaaranay intaasi adigoo jaamacadii dhameeyay ayaa waxa ku soo bixi kara ama aad heli kartaa intaas oo xirfadood oo ku kobcin karto aqoontaada dardaarankayga ugu dambeeyo wuxuu yahay walaalayaal inaynu dareensanaano waxaynu gacanta ku haynaa inay yihiin mustaqbalkii beritoole mustaqbalka beritoole haddii uu noqdo mid wanaagsan oo si fiican loogu dadaalay beritoole waxaynu goosanaynaa midho wanaagsan dhakhtarka wanaagsan injineerka wanaagsan macallinka wanaagsan sheekha wanaagsan siyaasiga wanaagsan ganacsadaha wanaagsan qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan hadaynu wanaag ka doonano waa in macallimiinteenu ay noqdaan qaar u hagar baxa ubadkooga oo u dulqaata culayska iyo shaqada ay hayaan culayska ay leedahay dareensanaada mar walba inay investment maalgelin ay ku sameynayaan wax lagu sameeyo wixii ugu qaalisanaa oo ah bani aadam in badan baa laga yaabaa dadka qaar inay laash qaraaraan ama ay la yaabaan investment ama maalgelin lagu sameeyo dhisme ama beero ama meelo kale waa ma jir laakiin waxa soo dhan waxa ka qiimo badan bani aadam human marka barakallahu fiikum aad badmaasantiin anigoo dareensan duruuftaad ku shaqeynaysan anigoo dareensan culayska shaqadaad haysan hadana mar walba dardaarankiin wuxuu yahay macallin rag iyo dumarba aynu dadaalka kordhino aynu isku dhigno halkii waalidku uu ilmaha ugu jiray saacadaha kooban ee uu kula joogo haddii uu ciyaaro haddii uu waxba akhri waayo ama waxba fahmi waayo intaba ugu dulqaado ka waalid ahaan adigoo haddana dadaalkii ku bixinaya oo mas'uuliyadii ku saarneyd ka soo baxay ugu dambeyntii waxaan si gaar ah ula dardaarmayaa macallinka marka uu xanaaqo ama uu ka waayo ardayga wixii uu ka filayay maciinsada ee awood bida ciqaabta
ciqaabtu ma wada diidanin oo dawaa qayb kamida toosintii laakiin yaanay ku noqon gaayo laakiin ku noqoto wasiilo waxaanad aad ugu dadaashaa in ardaydaadu aanay aqoon ku yeelan ama aanay aqoon u baran in marka xanaaqadaba in xanaaqaaga wada isticmaasho kuna isticmaasho ciqaab laakiin siyaalo badan oo qaladka ama gefka ardaygaagu ama ardaydaadu ay galeen loo cilaajiyo ayaa jira kuwaana waxaan jecelahay inaad hoos ku daadegto aad iyo aad baad mahadsantihiin وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفرينتن يفرينتين نوحكتا هذه أدبن ما سنتين